بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع ودروسي تربية. waxaan soo qaadanaynaa ilaali moraalka ilmahaada markay soo garaadsanayaan. gabar yar ayaa waxaa dhacday dhulka carabta inay aragtay 10 sanadkii soo gaartay labadeedii waalid oo midba midka kaleento uusan la hadlaynin oo isku caraysan oo laba qol kala jiifo. labadoodiiba laba qol ay kala jiifaan, kan kale lama hadlaayo. markaa gabadhii markay murug baa lasoo daragsatay oo soo garaastay aabihii hooyo oo xiriir fiican ka dhaxaynin, laba qol kala seexanayaan, labadoodi kala seexanayaan. oo markay iskuulka aadan ay arkayso waalidiintii ilmaha waalidiintood ay la socdaan, farxad ay la qaadaan, ama hooyadii ay la socoto ama aabihii uu la socdo. taas gabadhi marka damage weyn ku noqotay, sidii bay gabadhi ku qaangaartay ilaa haddana maxay ahayd ay gabar weyn inana ka noqotay. markii dambe waxay bilowday inay ilaahay barido, waalidkeed ilaahay u bandhigto, aragtay nolosha guriga ka jirto inaysan ahayn nolol macaan oo nolol qaraar oo labadii waalid foolxumo ay dhex taalo, wada hadal la-aan iyo maxay ahayd gurigii oo la kala aamusan yahay, haddana aan la kala tegin oo laba qol la kala seexdo separate way. waxaa loo yaqaan infisaalka, ama maxay ahayd haddana dadaan isqabin dadna isqaba haddana ah. caruurtii marka damage weyn soo gaaray, caruurtii damage weyn dhaawaca soo gaaray. marka gabadhii waxay bilowday inay ilaahay barido, kadibna maxay ahayd waxay go-aansatay inay duceysato, aabaheedna ay tiraahdo bilad inay la hadasho, tiraahdo aabo hooyo la hadal, aabo hooyo la hadal, aabo hooyo la hadal. kadibna waxaa bilaabatay in aabihii hooyada ay dib u wada fadhiistaan, ay wada hadal bilaabaan. muddo dheer ka bacdina khilaafkii uu xalismaday. nuxurka qisada waxaa weeyaan, caruurtaada ha tusin, ama laba waalidaad tihiin, ha tusina ilmihiina khilaafaadka dhexdiina dhex yaalo ilaa madal xayaad. nolosha saameyn weyn bay maskaxdooda iyo nafsiyaadkooda ay ku yeelanaysaa. taa iskhilaafsan tihiin, khilaafkii nuusan qolka jiifka soo dhaafin ama aa xalisaan bay aqsar waqtin. caruurta saameyn weyn bay ku leedahay khilaafka ilmaha, maskaxdiisa baaba-ayso, ciyaalka asaagiisu ka haraya, nafsiyan taylantigiisa dhimanaya. taas waa qisada koowaad. qisada labaadna waxaa weeyaan, gabar yar, ninbaa wuxuu guursaday gabar kasoo jeeda wadanka English carabiga nimsa lagu yirahdaa, nimsa iyo maxay ahayd wadamadan ingiriiska ka tirsan. kadib marka isagana nin carbeed buu ahaa. waxaa dhacday marka in gabar yar baa ilaahay dhexdooda ka beeray. marka hooyadii waxay ku hadlaysaa luqad European, aabihina wuxuu ku hadlaya luqad carabiya. marka hooyadii waxay tiri, cunugta waxaan barayaa afkayga, laba af ma yeelanayso, kii aniga aan kasoo jeeday yaan barayaa hay tiri. wadanka Austria hadda xasuustay, Austria wadankaasi kasoo jeeda, nimsa af carabi lagu dhahaa. marka waxay tiri af Austrian barayaa gabadha, taasayna ku hadlaysa luqada rasmiga u noqonayso. aabihina wuxuu yiri afka carabigan barayaa maadaama gabadha ay carab tahay, anigana aan dhalay afka carabiga. gabadhii sidaas muranka u taagnaa yay labadoodiiba maxay ahayd waxay ku dhex weynaatay, aabihii oo dhahaya carabigan baraya iyo hooyadii oo dhahaysa Austria. iskuul baa la geeyey, gabadhii labadii luqadoo waalidka labadiiba iska tuurtay, labadiiba way tuurtay. waxay baratay luqadii talyaaniga, luqadii jarmalka, isbaanishka iyo luqad kaloo afaraado inay ingiliishka ahayd aan jeclahay. marka kadibna hadda waxay tahay qof weyn oo dowladda maxay ahayd dowladahaas Yurub mid kamid kursi weyn kaga fadhiyo. maxay ahayd labadoodina ka dhex baxday, waxay keenaysaa su'ul ikhtiyaar. qofka inuu guursanayo iska fiiriyo, laba luqadood lagu kala hadlayo ama ajnabi la guursado. marka hadhow ilmihii markaas afkay ku hadlayaan. marka qof ajnabi luqad kale ku hadlaya guursato oo nolol ku dasta, ilmana dhexdeena ka beero. cunugaas marka ilmihii dhexdeena ka imaaday, ma afkii aabaha luqad rasmi u noqonayso, mise afkii hooyada luqad rasmi u noqonayso, mise labadoodiiba waa la isugu daraya. taana waxay keenaysaa inuu waalidka qofka lamaanayaasha guursanaya almuqbiliina cala zawaaj, dadka aad guursanaysaan inaa iska eegtaan, sidaasoo kale saysan idin qabsanin. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.